wasiirka difaaca ee dalka mudane xasan cali taliska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo ay wehelinayaan taliska xarunta tababarada ciidamada Turkisom ayaa lagu soo dhaweeyay garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde cutubyo ka tirsan commandoska Soomaaliya ee gorgor oo tababar gaar ah ku soo qaatay Turkiga kuwaasi oo muqdisho dib ugu soo laabtay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya mudane xasan cali maxamed amar dambe ayaa xusay in dawladda federaalka Soomaaliya oo ay hogaamiyaan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali qeyre ay mudan gaar ah siiyeen dhismaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed isagoo intaasi raaciyay in tababarada gaarka ah ee ciidamada ay ku soo qaateen dalka dibaddiisa ay qayb ka tahay xoojinta xuquuqda ciidamada wasiirka difaaca Soomaaliya ayaa sheegay in ay mudan yihiin in loo mahadceliyo ciidanka maadaama naftooda ay u hureen difaaca qarannimada Soomaaliya waxa uu dawladda ay dadaal xoogan gelisay dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliya gaari wara dhaqaaq sa lana galan gal